أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا qiimihiisu waa waxa uu hagaajin karo waa farsamadu yaqaaniyo wuxuu yaqaano wal khaasatu taqul buu yiri laakiin dadka indheer garadka iyagu waxay yiraahdaan buu yiri qiimatu kullu muri'in ma yatlubu qof kasta qiimihiisu waa hankiisa iyo halka uu hiigsanayo wuxuu doonayo yani caamadu waxay yiraahdaan buu leeyahay qof kasta waa intuu garanayo laakiin khaasadu waxay tiraahdaa buu leeyahay qof kasta waa intuu ku haminayo intuu ku warwarayo u raadinayo أبو طيب المتنبي شاعر كعربية معروف كها المتنبي دي وحاب يسكت دينو النبي شكته وحوجا أبو كتب تبرسيي من كسال حدي آخر كيبو كتابات كراو كسر نقضي متنبي بقى وحوليه قبي ديسه ديوان كيسا قيب دم كوشرتو آدو تربضا أو كجو رمي همي كسرية هنك سرية قفكم ماشو ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام بولي ما أنا ركب بولي عيبت بنا آدم عيب كليدته قف وحووده كرضو ميل هو سجوغا قف وحوودي كره وهدنا آن سمينين عيب كليدته أنه ما أنا ركبو لي أيها الأحبة همدو مركا واحد هذا ما لبا قيبوت قيبو ووهبي يعني والله دشاه قيبنا وكسبي بيد هذا والله اسكو تربيه والله كبعيه لكن قف كستو بني ادم من نوع من الهمه وكدشاه ولذلك با waxay ku tilmaamaan bini aadamku wuxuu ku kala gadisay bay yiraahdaan laba shay matalibahum wa hadafahum waxa ay doonayaan ama hadafkoodu wuxuu yahay targetka goolka yoolka meesha uu raadaynayo halka uu ku socdo bini aadamku ku kala gadisay nin janno doonayo raadcadeed ku jira oo booska ugu yar uu yahay dunidan tobanlaabkeed iyo nin qurus yar dunidana qayb kamida ku mashquul waa kala nooc wala bahamo cirkiya dhulku inta isu jira waayo ninna wuxuu raadcadeed yahay adduunkan tobanlaabkeed baa ninka u boos yar leeyahay marka adduunkan tobanlaabkeed wax ka balaaran buu habeen iyo maalin ba raadcadi ku jira ninna wuxuu raadcadi ku jira maxay in yaro adduunka kamida madaxnimo tuulo yaro inteenan aynu deganno kale inuu maamulo iyo wax la mid ah waxoogaa lacaga reer hebel inuu u dhaqaalo bato inahaasuu raadacadiisu tahay waa laba hamo aad u kala fog idan bini aadamku mataalibta iyo ahdaafta waa ku kala gadisayin waxay kaloo ku kala gadisayin bay yidhaahdaan alhimam almuusila ilaa hada almataalib walahdaaf hanka gaadhsiinaya meesha oo mid baahan iska haya laakiin hankiisu waa riyo baba dhaqaaqo waxba ma qabto idan kaasi daydreaming buu ku jira waa qoladan ay yidhaahdaan socodku ku riyooda dadka badhna markay seexdaan oo quray riyoodaan dadka badhna iyagoo soconaya riyoonayaan soo jeeda yani ninkana waa riya wixiisu waxay yidhaahdaan markaa qofka ku haminaya mataalibta sare عرب أهان أف أهان كشيغية لكن فعل كيسي دقدقاقي سؤال وموقنين عين كاسي ومتمني بيدهدين مغرورة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به بإله إليه سبحانه وتعالى أماني دينه وحاسك جيد الدولون إنسان ما هبا إله إليه يا أهل الكتاب يقول وحي كذي يدولونيان من يعمل سوءا يجزى به عدي حما سما يسوى لغو أبال مرينيا إذن قفك يسوى هم بان لا يله لكن فعلانه كم مغنني كاسوا متمني أما هو مغرور ومثل كديي مطالب الدنيا أنا أتمنى غدا لكم قارو الدنيا غلابة بين هذين ورق اسكدعيني يلا
ayaa lagu gaadhaa oo loolanka ay ugu horrayso naftaada aad la loolanto wax ku xidhxidha naftaada ugu adag in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim maa bilanfus haddaanad jebinin waad xidhxidhantay waataynu hore u tilmaamnay inaynu silsilada nafta ka jebinayno macnaheedu ah haddaanad xadhgan koowaad jebin ficilku maba socdo walidaalik addunya ghallaaba bay idhaahdaan waxaa lagu gaadhaa legdan idan dadka waxaa ka mida qaar kow kuwaasi waa guruubna iyaga marka horeba hamigoodaa liita oo safaasif alumuur iyo wixii liita ayay hamigoodu yihi oo qaybta tan han wuu leeyahe hadafkaa ka xun maalan waa nin han leh laakiin hadafkiisa ah in la tunto iyo in la heeso iyo in la boodboodo iyo in dunida la marmarayo intan baa hadafkaa liita laakiin shaydaannimadaa wuu ku xeel dheeriyey xog buu u jiidhaya waa leeb xagga kale uga dusaya laakiin kaa haddii hadafka loo saxo wuxuu noqonayaa kuwii nebigu lahaa maxay annaasu macaadin khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaam idaa faqahu waa duul hadday wax fahmaan toosnaan kara dadka badhna hamiba male sida xooluhu isaga noolyihi wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabbi lahaa waagu saakana bariyayna dhaqaajiya weeyaan adceedda un soo baxeedu iska sugayaa wax kale oo uu ku hamileeyey ma jiro waxay idhahdaan kuwaasi waa kuwa hadday joogaanna wax lama weyddiiyo hadday maqan yihiinna lama tabo meesha hadday joogaanna cidi wax ma weyddiiso hadday maqan yihiinna lama tabo erayadaasi afarta kooxood aynu u qaybinay bitacbiir ibn اlqayim haddaynu soo qaadanay wuxuu leeyahay bini aadamku wuxuu ku kala gedisayay buu yidhi laba shay macrifatu اlxaqi min albaaطil oo ahdaafta iyo mataalibta ah iyo iithaaru اlxaqi cala albaaطil oo hamigii kugu bixinayaya xaqa iyo baaطilka inaad kala garato iyo xaqa inaad ka doorbido baaطilka oo aad raadacayso masaladaa markaynu eegna buu yidhi basharku aqsaam afaray u qaybsamaan kooxda ugu sarraysaa buu leeyay waa ambiyada ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wadkur cibaadana ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba uli اlaydi wاlabsaar waxaad xustaabaa ilaahay leeya addoommahayagii nebi ibraahim ahaa isxaaq ahaa yacquub ahaa saddex nebiyoo isdhalay ilaahay muxuu ku sifaynayiin ululaydi iyo walabsaar waa ululaydi ay uluquwa quwa nafsiya himma caaliya quwa camaliya bay leeyihiin waxay kaloo yihiin baa layidhi ulilabsaar waa indheergarato labadiiba iyagu way wadaagaan hadafkuna wuu u cadiyey oo xaq iyo baatil way kala garanayaan meesha lagu socdo ahdaafta korraysa iyo kuwa dani ah waa u kala soocan yihin himmaddii iyo waxqabadkiina way leeyihin idan bulshada gruubka labadaa helaa ugu sarreeya waxaa ugu hooseeya gruubka labadaba la man laysa lahu basiira wa huwa daciif aragti fogna ma leh hamad wax qabata iyo awood wax ku qabtana ma leh aqoonina ma jirto hamina ma jiro kaasina waa kaynu lahayn isagu tirsis maaha qayb saddexaad baa jirta hadafka wuu garanayaa laakiin hamadiisaa yar waa almu'min daciifkuu nebigu ku tilmaamay hadafku wuu garanayaa janno iyo naar iyo naar laga baxsoo janno la qabto ilaahay la raadceeyo adduunku aanu fogayn hadafkaasi waa u cadyahay laakiin waa daciifu ulhimma waxqabadkiisaa yar aragtidaasi intuu u socdo ayaa gaaban qaybta saddexaa afraadna waa qoladaa cagsigeedoo casiimay leeyihin iyo himma laakiin basiiradoodaa liidata idan wixii dhaqaaqaba way iska raacayaan laakiin raacistoodaa xawli ku soconaysa sharka hadduu bilaabana xawluu jarayaa khayrka hadduu bilaabana xawluu jarayaa laakiin waxaa liita kala soocooda markaasuu wuxuu leeyahay ibnuulqayim laa yakaadu yumayiz awliyaaءi الraxmaani min awliyaaءi الshayطaan bal yaxsab kula sawdaa'in hamara wa kula baydaa'in shaxma wayaxsib ilwarama shaxman waاddawaaءa الnaafica suma
liannahu laysa cindahu cilmu wabasiira fi ddiin buu leeyay wixii cadba baruur buu moodayaa buu leeyay wixii cadba baruur buu haystaa buu leeyay wixii madowbana midhuu moodayaa yacni aqoontaa liidata laakiin himadiisu way sarraysaa koox qura hoggaanka u cuntanta wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun alyaqiinu waasabr kooxdaasoo qura ayaa hoggaan u cuntanta walidaalika ayuha alaxiba waxaynu leenahay qofka hanku iyo himmada sarraysa meelaan camalkaagu gaadhin bay xataa ku gaadhsiin kartaa aakhiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidkeena u tilmaamayay man hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ninka wanaag ku hamiya ee xataa aanay u suurtogelin inuu qabto ilaahay wuxuu u qoraa maxay xasana kaamila baa la yidhi